محمود عيسى السعيد waxaan ka mid ahay bulshooyinka Puntland dalkii waxaan u soo booqday inaan ka hadlo arrin shalayto barnaamijka dalkii ka baxay man hadalka la yiraahdo lagaga hadlayay booqashadii ra'iisul wasaaraha federaalka uu ku yimid waqooyiga galkacyo markii waxaan saluugay bulsho dadweyne reer Puntland qayb ka mid ah hadalkoodii taa ayaan doonayay inaan wax ka iraahdo saas ayaan ku soo booqday waxa weeye adduunyadu nidaam bay leedahay sharci iyo kala damayn waxa weeye iska dhaaf ra'iisul wasaare gobol booqanaye barasaabka gobol xukuma barasaabka gobolka mudug haddii uu galdobo booqanayo waxaa khasaba inuu maayarka ama dhiinsiga degmada galdobo xukuma inuu wargeliyo inuu u sheego inuu imaanayo xilli uu soo baxayo dabadeedna uu hawlgalo maayarkuna markaas bulshadiisa diyaariyo sidaas ayay booqashada ku bilaabataa ma ay jirto waddan la iska soo galo ama meel la iska soo galo waxa weeye waxay ka dhigan tahay nin gurigaaga intuu kuugu yimi ku yiri caruurta iyo islaamta la shiraya baldibada igu sug marka aad bay magaranaysaa runtii waxay u ahayd meel ka dhac aniguna shakhsiyan waxaan rumaysnahay ra'iisul wasaaruhu inuu ku joogjoogsaday shuruucdii iyo kala damayntii Puntland waxa weeye waa federal baynu hortanahay dadweynaha reer Puntland ama dadweynaha Soomaalida waxaan ku arkay federaalka ay khalad ka fahamsan yihiin oo federaalka waxay u arkaan waddan kala go'ay waddan kala tagay war ma aha wadamada super powerka ah sida waddanka Mareykanka adduunka ugu weyn dhaqaale ahaan iyo military ahaanba waa federal Russia waddanka labaad xiriirka guud ee Russia federaalka la yiraahdo dawladda Ingiriiska waxaas waa super powerki waa federal Germanka waa federal Belgiumka marka waxa weeye iska dhaqankeena haadina Ethiopia inta ay noo jirtaa 3 sano dawladaha dib u dhac bay ahayd 27 sano federaalka ahayd horumarkii ay gaartay ayaa ka qiimo badan muddada dheer dawladda ahayd inagu Puntland hadaynu nahay waxaan nahay gaari waana suuxii mikrofon laga soo baxay halkan la yimi waxba meesha ma oolay Puntland anigu sidaan arko dawladdu way doonaysaa dawlad dhexe oo macno leh laakiin ummadii sharciga ay dhigatay iyo qawaaniinta ay xeeratay haddayan xaq dhowrin dee waxba ma jiraan waxaa ka muuqata dawladda federaalka madaxdeeda inay dastuurkii meel iska dhigtay dabadeedna ay u dhaqmayso jeeniga afran Puntland waxay leedahay gobolyaal waxay leedahay cuqaal dad madaxa bay leedahay yani haddii iyaga xaq dhow dadkii loo wakiishay inay siyaasadda dhaqaalaha amniga waxa hagaan haddii la iska dhinac maro oo dad meel boodboodaya caruuro iyo waxa maba garan karaan marka waxaan ka xumahay dawladda Puntland ayaa waxa ka muuqatay miskiinimo iyo doqonnimo waxa la helay haddii uu protocolkii diiday ama qaabkii dawliga ahaa wanaagsan inay yiraahdaan war meeshaada ku eko anagu dawlad nidaam baan leenahay oo in lagu tunto lama ogolin